بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال كسر دوادا channel كيغا حبيب عبد الرحمن فضلا هداتك عصبتهاي سبسكرايب تسارو قنبليل كنفرو si ay barnaamijtu markasta ay ku soo gaaraan insha Allah taala waxaan halkan uga mahadnaqayaa walaalaha igu garab istaagay khayrka aan u soo gudbiyo markasta oo maanta channelkeenu uu marayo konton uu kor u dhaafayo insha Allah taala waxaan idin leeyahay Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin barakeeyo miisaanka xasanaadka yawmul aakhiran Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idin ku daro khayrka aan markasta soo gudbinayo iyo cilaajaadkana Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha idinku anfaco sharul ashrar iyo zaalimiinta iyo xaqidiinta iyo xasidiinta iyo saaxiriintana Ilaahay subhanahu wa ta'ala dhibtooda iyo sharkoodana ha idinka xijaabo biidnillaahi almawla biikhtisaar maanta si kooban waxaan uga jawaabi doonaa su'aal ay walaaluhu aad ii soo weydiiyaan su'aashaasi waxa weeyaan in badan suxaradu wal ciyaadu billah marka ay rabaan qofka muslimka ah inay dhibaateeyaan oo ay sixirka rabaan inay ku rabdiyaan ama ku xiraan ama sixraan oo kale bil matalan waxyaalaha ay isticmaali karayaan ma ka mid noqon karaysaa waxa loo yaqaano taswiir sawirkaaga in uu helo saaxirku ama waxa loo yaqaano bil ittisaal telefoon ahaan oo kale ma kugu sixri karaya dabcan in badan baan ka soo sheekeeyaa wasiilooyinka kala duwan ee ay qofka muslimka ah ku dhibaateeyaan wal ciyaadu billah marka ay rabaan inay dulminayaan oo de sixrayaan su'aasha haddaan si kooban uga jawaabo inta ugu badan maanta sixirka loo geysto dadka wuxuu ku yimaadaa bisuura marka laga yimaado sixrada kale bil arqaam bil talaasim marka la rabo qofka in wax la cabsiyo ama sixir la cunsiinayo ama guriga loogu marka kuwa laga yimaado in badan sida aan ka tilmaamay oo aan ka hadlay marka qofka uu rabo inuu ku dulmiyo oo subhanallah sixirka cadowgaagu uu sixirka rabo inuu kugu sameeyo ama cadowgaagu markuu saaxirka u tago waxyaalaha uu saaxirku ka dalban karayo waxa kamid ah sawirkaaga welibana inta ugu badan waxaa lagu sameeyaa reeraha la rabo imaa in la kala kaxeeyo imaa in madiida iyo isjeclaysiin lagu sameeyo wal ciyaadu billah waa laba sixir oo kala duwan sixir almahabba iyo sixir tafriiq bil mithaal qoys baa raba inuu idin dulmiyo oo idin kala kaxeeyo isku kindiro adiga iyo zawjkaaga ama adiga iyo xaaskaaga waxyaalaha ugu badan ee uu saaxirku adeegsanayo waxa kamid ah inuu helo sawiradiini aad arooska ama aad iskula jirteen oo kale ama sawiraad isla taagantihiin oo kale waxyaalahaas oo kale aad u dalbanayaan idan marka waxa loo yaqaano saaxirku halka muxuu ka dhex faa'iideysanayaa in uu ka dhex helo sawirkaas sida aan shaashada ku dul qorayo sawirkaas oo kale waxa laga yaabaa inuu u adeegsado inuu tafriiqi idinku dhex sameeyo dalaasimtii iyo wixii buu idinku dul qorqoraya inaad kala tagtaan masbaar buu dhexda idinka gelinaya wal ciyaadu billah imma qof baa raba inuu ku madiidaysto ninkaagii baa wuxuu rabaa inuu ku madiidaysto oo ama nin aan ku qabinba idan waxa loo yaqaan sawirkaagii oo kale ayuu raadinaya idan marka waxyaalaha ugu badan ee ay ka faa'iideystaan suxaradu idan waxa loo yaqaano bishart hal shardi ayay inta badan suxaradu markay arkaan qofkan sawirkiisa hal shardi unbuu sixir ku qaban karaya hadduu shardiga oofsado way dhici karaysaa halkaa shardi wuxuu noqonayaa qofkan la sixrayo ee personal attacka lagu sameynayo ee targetka lagu sameynayo hadduu ahaa markiisii hore qof cibaadaadka iyo adkaarta iyo weysada iyo salaada iyo is-asturtaan hadday gabar tahay oo kale inay is-asturto ama inay isqaawiso oo kale hadday isqaawin jirtay salaadeedu hadday yareen cibaadadeedu hadday yareen markeedii horeba haddaysan waxa kan ku baraarugsanayn sawirkaa bimujarad
uu ka helay saaxirku uu ku adeegsan karayaa sixirka wuuna ku samayn karayaa. ama saaxirku haddii uu arko qofkan inuu yahay qof mutadayina oo multasima oo ahlu salaada oo ahlu adkaar ah oo har iyo habeen xirsixir iyo adkaar iyo qiyaamuleyl iyo salaad iyo sadaqo ku mashquulsan aad iyo aad unbelievable way ku adkaanaysaa inuu qofka sixirka ku adkayo. sideeda banaanba saaxirku waa daciif aad buu liitaa wuu ihaanaysan yahay wuu dulaysan yahay halkaa waxaa ka galay hungurigii baa ka galay imaa hadduu meel kale hungurigiisa ka heli lahaa mabuusan aadi lahayn. lidaalika inta uu been sheegayo qofuusan sixrin inta uu leeyahay waan sixray baa xataa badanba. lidaalika mararka qaar waxaa jirta qofkani inuu yahay multasim saaxib alcibaada saaxib aladkaar mar kasta afkiisa adkaar aan ka dhigan weyse aan ka dhigaynin uma suurtagelayso inuu saaxir ku sixro. waxyaalaha cajaa'ibta qisooyinka aadka iyo aadku cajiibka ah gabar walaashayn ah oo soomaaliyeed oo la sixray oo sixir u qabtay ayaa muddo dheer dad cadow ah dumar cadow ku ah ayaa fursad ka raadin jiray. gabadhaasi waxay ahayd gabar adkaarta iyo cibaadada iyo salaada aad ugu dadaashay ahayd. fursad bay ka waayeen saaxirkiina fursad buu ka waayay. yowm min alayaam ayaa gabdhihii waxay ku yidhaahdeen heblaayo hee gurigaanu kuugu imaanaynaa haye qaday u diyaarisay way marti soortay sida dhaqankeenu ahaa min duhur waa la joogay marba sheekay u bilaabaan markay qadeeyeen maxay kala dagaalamayaan gabadhaasi bacdal casrka marka la gaaro soo adkaar masaa'iya iyo adkaar sabaaxiya jira soo maaha adkaarta subaxii la akhriyo iyo adkaarta gelinka dambe ama bacdal casrka la akhriyo labada adkaar waa sunne aad bay u fiican yihiin waa labada adkaar ee aadka qofka u xijaabo weeyaan. gelinkii dambe ayay sheeko u bilaabeen dhinacanay kaga bilaaban oo dhinacanay kaga bilaaban oo tani hadday sheekada dhamayso mid kale sheeko u bilowdo gabadhiiba waa la mashquuliyey. markii la mashquuliyey sidiibaa aadaankii maqrib ku soo galay. maalintaas ayuu ku bilowday subxaana allah xanuunkii sixirkuna uu qabtay. lidaalika waad u jeedaan markuu wax kasta uu garan waaye saaxirku wakaa wuxuu fursadaasu ka raadsaday. dadkii cadowga ku ahaana waa u sheekeeyeen adkaartii bay ilowsiiyeen. ilan waa bini aadan qofku hadduu sheeko loo galo halkan sheeko looga galo ilan qof aad adigu maanta soo dhaweysatay hadduu kafantaadii tolayo oo mushkilad moogtay kamana shakinaysa xataa subxaana allah wayna dhacdaa in badan. idan waxa loo yaqaano sawir ama suurad ama waxa loo yaqaano telefoon in inta lagaa soo waco telefoonkana hal shardi baa ku xiran ma ahan wax loo yaqaano halow keliya layskuma sixri karayo. waxaa la isku sixri karayaa inuu qofkii kuu sheekeeyo saaxirkii waa ku soo wacay cabaar buu kula sheekaysanaya walciyaadu billah markaasuu waxa loo yaqaano sawdkii kugu sixri karaya. lidaalika waxa loo yaqaano sawiradiina inaad ilaashataan sawiradan aad snapchatka iskaga soo tuuraysaan sawiradan aad aroosyada ku galaysaan sawiradan aad facebookyada la yaacaysaan sawiradan aad cid kasta u diraysaan sawiradan la idinka hayo inaad aad iyo aad u ilaashataan inaad noqotaan dad dhowrsoon oo protocol leh oo aanan sawiradooda meel kasta laga heli karayn. waa inaysan cid kasta sawiradaada heli karin cid kastana aadan u diri karayn. waa inaad maxfadadaada iyo telefoonkaaga ku haysataa ku ilaashataa. laakiin sawir haddaad meel taaganta haddaad is sawirto mar dhow haddaad mid kale is sawirto haddana mar kale is sawirto dee hadda waabaad aragteenoo bulshadeenni wax u qarsooni maba jiraanba. bulshadeenni sideeda bannaanba hadda waxay noqotay wixii guriga lagu hayay baa laga sheekeynaya. waad aragteen tiktokyada waad aragteen facebookyada waad aragteen youtubada. waxaan aad ula yaabaa dadkii qaar arsaaqadii waxay ka gashay youtubekay ka gashay marka waa inuu noloshiisi mindaba iyo dacal ilaa sariirta uu soo duubaa. awlaadeedii inay markasta soo duubto soo dhigto ay tiraahdo hadda halkanaan maraya halkanaan soconaya maanta cuntadanaan karsaday hadda halkanaan maraya subxaana allah
waxaynu maraynaa duni iska da in sawir la qariyee lagu siganayo hadda in waxa weeyaan wixii gogasha reeraha ku dhex mari jiray in la soo bandhigo heerkaasaan dee maraynaa gabar rabta inay isku dhex iibiso tiktok oo daba iyo dacal jirkeeda maalin kasta duubaysa subxaan allah sidee baa hadhow looga badbaadayaa ishii sidee baa looga badbaadayaa xasadkii sidee baa looga badbaadayaa sixirkii sidee baa looga badbaadayaa fisqigii sideeba haddaan marka hore la is ilaalin wiqaayo la samaysan la taxadarin waxaan kan laga cabsan yacni fiiri cudurka marka uu dhakhtar wax kaaga qaban karayo waa intaad kaarjamin iyo waxa loo yaqaano heli karaysa waa intaad dhakhtarti qalliin heli karayso waa intaad subxaan allah yacni heli karayso dhakhtar cad laakiin waxaan dhakhtarku xataa kula fahmi maayo waxaan dhakhtarku xataa kula fahmi maayo hadhow markaa waxay noqonaysaa noloshaadii oo dhan inaad cabasho iyo xanuun ku dhammaysatid haddaadan maanta taxadarin haddaadan maanta is ilaalin waxaaba laga yaabaa culimmada qur-aanka dadka saara ee zamankan jooga inay firaaqadoodu iska yar tahay waxaa laga yaabaa waxa loo yaqaano waaba gabaabsi waaba yar yihiinba waa aad bay runtii u yar yihiin marka si loo eego sida dhakhaatiirtu yihiin iyo sida culimmadu yihiin walidaalika haddana waxaaba soo kordhayba lamaba kala fahmayaba yaa kii saaxirka ahaabaa wadaad iskaga kaa soo dhigaya adoo ka waran sixranaa ilaahay baan kugu dhaarshaya adoo sixranaa oo sixir ka cabanayay bal markaad saaxir afka uga gashid bal ka waran uu haddana sixir kale kugu sii taago adoo 12 sano sixir la dhibaataysana haddana uu saaxir kale sixir kale kula sii taago subxaan allah walciyaadu billah يعني heerkaasaynu maanta marayna wayna dhacdo runtii gabar walaasheena aad oo maalmaha kanaan cilaajaad u wado صراحة mudday sixranay 9 sano oo dambe saaxir baa gacanta ku haysta uu soo wacanaya warqad buu soo diraya heer waxay gaadhay warqad inay gurigeedii ku sharaxdo meel kasta ay ku sharaxdo subxaan allah ma gubi karayso way ku dhibaataysantahay way ku rafaadsantahay telefoonka hadday bedesho telefoonkeedu wuu soo helaya hadday subxaan allah yacni wuxuu ku sameeyey xayndaab buu ku sameeyey 9 sano ayuu saa u haystaa iyadoo awalba xanuunkan la dhibaataysan subxaan allah magaalo kale xataa hadduu u guuray wuu maamulanaya mar kasta wuu soo wacaya xaggee maraysa hadda xaggee maraysa subxaan allah adkaar hadduu ku arka hadhihin adkaarta ma musiiba kugu dhacday ma dhibaata kugu dhacday ku dhacaya maxaa adkaartan xilliga dhibaatada la akhristaay maxaad u akhrisanaysaa subxaan allah idan ikhwaani fillah hal taxadaro sidoo kale halkan waxaan fariin uga dirayaa dadka dhibaateynaya dadka sixraya dadka dulminaya dadka xastaya war adduunyadu waa 4 cisho adduunyadu waa adduunyo laga tagayo waxa loo yaqaan maanta qof walaalkaaya hadaad istiraahada adduunkan ku dhibaatee adiga ilaahay subxaanahu wa ta'ala xagaad ka galaysaa maalinta yawmul qiyaamah adiga maxaa ku sugaya ciqaabka ku sugaya intee buu leeyahay qofkana waaba adoon ilaahay dunuubtii buu kaga sii khafiifinaya dunuubtii baa laga sii khafiifinaya oo de ilaahay subxaanahu wa ta'ala adduunka qofka ku imtixaamo aakhira lagu imtixaami maayo xisaabtana aakhir waa loo fudaydinaya laakiin adiga waxaas iyo dambi hadduu galo waxbaad ku leedahay dambi hadduu galo madaxa lagu saaraya reeraha iska daaya ha kala furina ha isku dirina war dadku ha idinka noolaadaan war dadku ha idinka ceeshaan war dadkan ilaahay subxaanahu wa ta'ala maalintu adduunka keenayay kaalama tashan idinkalama tashan dadkan ilaahay subxaanahu wa ta'ala bay leeyihiin arsaaqdooday leeyihiin quudkooday leeyihiin noloshooday leeyihiin waxa loo yaqaan yacni wad ogtihiin subxaan allah haddii ibni aadamkoo dhani uu isku dayo inuu ku dhibaatay sida ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu leeyahay xadiisul qudsiga ku leeyahay hadduu adduunyada wax insaan jooga haddii isku dayo inay ku dhibaateeyaan oo ilaahayna uusan kuu qadarin kumana dhibaateyn karayaan haddii dhibaato iyo imtixaan lagu qorayna oo dadka adduunkan koonkiisa saaran ay isku dayaan inay ku saacidaan oo ilaahayna uusan kuugu talagelin waxba kaama tari karayaan kumana anfici karayaan marba hadday sidaa tahay maxaad har iyo habeen reeraha ugu mashquulsan tahay
caruuraha uga dhibaateynaysa, reeraha iskugu diraysa. subxaana allah walciyaadu billaah. ilaahay subxaanahu watacaala u toobad celiya oo dadka aada isku dirteen cafis weydiista oo dadkaa addoommadaa ilaahay subxaanahu watacaala u nabadgeliya sawiradooda u nabadgeliya, telefoonadooda u nabadgeliya, noloshooda u nabadgeliya. adiga ilaahay subxaanahu watacaala tooba weydiiso, camal saalixa weydiiso, ilaahay u noqo, ilaahay arsaaq weydiiso, ilaahay reer haddaad reerkaa wanaagsan ka maseerta ilaahay subxaanahu watacaala waxba kuma ah reer wanaagsan ku siin karaa. reer wanaagsan samayso, ilaahay ka bar, ilaahay weydiiso, iimaan yeelo, iimaan dhaba. intaasna waa iga dardaaran walaalaha ku fitnaysan dhibaatooyinka inay dadka isku diraan, inay dadka dhibaateeyaan, sixraan, xasdaan, xaqdaan, sixraan, ili cayuun iyo qumaya ku noqdaan. ilaahay uga baq. ilaahay haddaydan insaan ka xishoonaynin ilaahay uga baqa. dadka sixraya ee iskaga dhigaya waxa loo yaqaano war suxaro toobad celiyey noqda oo ilaahay u noqda oo maanta wixii aad ku fitnayseen, waxa ummadda aad ku fitnayseen uga diga ummadda. waxyaalaha cajaa'ibtan arka waxaa ka mid a saaxir suudaaniya ayaa jiray, uu toobad celiyey, ilaahay dartii buu toobad celiyey, wixii waa ka baxay. maanta wuxuu noqday mid isagu dadkii wixii uga diga. sheekh hebelow waxaasi waxa adaa yaqaani jiray maxaa iska ilaali, ka fogo. towba saalixa, toobadu waa kuu furanta, ilaahay uga toobad celi oo waxaan aad samayn jirtay ummadda uga dig. intaasaa wanaag iyo khayr iyo aakhiro badbaadadeeda kuugu filan. oo waxa loo yaqaano waxa kan ummadda uga diga, ka toobad celiya. shar iyo shayaadiintan faraha kala baxa, waad ka adkaan karaysaane faraha kala baxa. ummaddana ilaahay u nabadgeliya, arsaaqad meel kale ka doonta. jazaakum allahu khayran, wsala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamed.